مساكين رونا محمد مساكين رونا محمد هذا المحيب ذادي مركاحيا waa gabadh maalkeeda maskaxdeeda iyo muruqeedaba u hurtay si ay waxtar iyo daryeel uga qayb qaadato baahida wadankeeda hooyo. Aamina Maxamed Tuwaale waa gabadh ku takhasustay kana soo shaqaysay waqti dheer healthcare services magaalada London ee wadanka UK. waxay joojisay shaqadii ay ka haysay wadanka UK iyada oo ku soo laabatay wadankeeda hooyo. waa daryeel aad looga baahnaa wadanka. gabadhan ayaan maal iyo miciin cidna ka helin xag dawladeed iyo xag hay'ad. waxa aan ku booqday Aamina magaalada Burco ee gobolka Togdheer, khaas ahaan xaafada Plaza, halkaas oo ay Aamina ka hirgelisay hospitaal u gaar ah xanuunada guud ee dumarka, khaas ahaan dumarka uurka leh iyo kuwa umusha ah. waxaan weydiiyay Aamina xilligay furtay, sababta ku dhalisay iyo caqabadaha ka hor yimi markay furaysay hospitaalkan. Assalaamu alaykum. Waan santeen ibnataana maanta nagu soo booqatay Hooyo Hospital. Hooyo Hospital waxa aan furnay oo ka furnay gobolka Togdheer gaar ahaan Burco October 2023. so sanadkii hore bishii 10aad ayaan furnay. imkana sanad baan u buuxsamay alxamdulillah. waxay fikradda igu sii daliyay oo aad igu sii adkeeyna waxay ahayd maadaama aan soo sheegay dhowr jeer imaatay wadanka, waxaan arkay baahida loo qabo dhakhtarkan oo kale oo services kan kala duwan bixinaya. waayo waxaan arkay mortality xagga dumarka marka la eego hooyooyinka, caruurtii, dadkii oo kale shicibka oo kale caadi ahaa medical xitaa markaad eegtid aad iyo aad buu u dayacan yahay. waxaad kusoo dadka kusoo bulshada kusoo kordhin kartid oo caafimaadka. marka dhakhtarku wuxuu ka saabsan yahay qaybta dumarka oo marka la dhaho Hooyo Hospital waxa la moodayaa inuu dumar u yahay. marka dhakhtarku maaha dumarun, waxa weeye cid kasta oo caafimaad u baahan, adeeg caafimaad u baahan, hadday caruur noqoto iyo hadday dad waaweyn noqoto, hadday medical noqoto iyo hadday noqoto qaybta la dhaho gynae ama obstetric gynecologist waxaas. caqabado badan way jiraan marka aad doonaysid wadankan wax ku soo noqotid oo wax ka hirgelisid wax kastaba ha ahaadaane. hospital amba caafimaadkuna wuu ka sii xag jiraa. marka waxay igu adkayd waxyaabo badan iyadoo jiraan. waxay ahayd xagga marka aanay jirin network amba aanay jirin NGO amba aanay jirin charity amba aanay jirin, oo wixii ay tahay waxaad adigu tahay inaad adigu hirgelisid oo self funded ay tahay oo adigu naftaada iyo ama family support ha ahaatee aad adigu tahay inaad adigu hirgelisid. marka taasay igu adkayd financially. waa qalabkoo dhan waxaan ka keenay Ingiriiska ka soo iibiyay. qolkan imika galayno qalabka yaala banoo sharax waxa yihiin bal wax nooga sheeg. unit qolkan waxa weeyaan ugu saabsan yahay qolka ciyaalka amba qolka neonatal la dhaho. marka laba dhinac baan u kala qaybiyay. dhinacan waxa weeyaan neonatal amba ciyaalka yar markay premature ku dhashaan amba u baahan support oxygen iyo waxyaabahaas amba dhaxanta hamili kareynin conditionka la dhashay ciladaha la dhasha ayaa kan maxay incubatorkii halkii kululeynaysa weeye. waxa kaloo jira aan hayna weeyaan sida imika sida qurbaha kale waxaan u sameynay sariirtii oo hooyadii amba aabihii maadaama ilmihii hortaagan yihiin amba ilmihii la joogaan ay ku nasanayeen. so taasna halkaas aan uga hirgelinay. qolkan waxa weeyaan operation amba OT qolkii qalliinka weeyaan. marka oo ku saabsan wixii qalliin u baahda amba xaalad degdeg markay timaado emergency ah, waayo hooyooyinku xaaladooda lama hubo. marka waa OT-gii amba operation room-kii oo qalabaysan, oxygen-kii oo yaala, laydharkii oo yaala. adigu the basic weeye, laakiin it's more than enough amba way ku filantay wadanka. waa farmasiga hospitaalka. waxay noqotay muhiim inaan farmasiga ku soo kordhiyo. farmasiga marka dawooyinka qaar Ingiriiskan ka keenay inta awoodeedan aan heli karayay, qaarna badankooda qurbaan ka keenay gaar ahaan Ingiriiska. for example bahaladan xiiqda loo isticmaalayo, dawooyinkan kaarjabinta, muhiim badan ayaa dawooyinka xasaasiyadda marka iyo dawooyinka dumarka markay hunqaacayaan. dawooyin baa jira xaggeena ka helo laakiin halkan laga helin, for example cyclicinka iyo waxyaabahaas. waxa ay kale oo ay Aamina na tustay
qolka ay hooyadu joogto markay umusha tahay qolka waxbarashada ardayda iyo shaqaalaha loo tababarayo shaqooyinka ku saabsan caafimaadka qolka shaybaarka qolka ay hooyadu ku umusho iyo qolal kale oo badan مساكين رونا محمد مساكين رونا محمد هذا المحيب ذادي مركاحيا نبي الله معانو رسولكم معبود ديرتو مقاسمو معلنكي أدونك إلى مسلم مدحو قادقو markii uu yaraa miikii tagay maqan raacaye malaa'igi qaatee laman roge meel la geeyay markii uu yaraa miikii tagay maqan raacaye malaa'igi qaatee laman roge meel la geeyay